soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa arbaco waana 26 bisha agosto iyo ogolow inaan kula wadaago wararkii ugu dambeeyay tan iyo tabinteennii hore wiilka uu dhalay ra-iisul wasaaraha Israel Yair Netanyahu ayaa lagu waramayaa in laga kaxeeyay magaalada Miami oo dalka Mareykanka ah kadib markii sida la sheegay la helay xog ku saabsan unug ka tirsan dhanka iyo dowladda Iran oo lagu eedeeyay inay halkaas ay kala socdeen dhaqdhaqaaqiisa sida warbixintan oo warbaahinta Israel ee daabacda lagu sheegay sirdoonka Israel ayaa bishii December ee sanadkii hore waxay sheegeen inay ogaadeen qorshahaasi waxa sidoo kale la sheegay mas'uuliyiinta Mareykanka in arrintan lagu wargeliyay laakiin maalmo ka hor ayaa haddana waxa soo baxay macluumaadka ku saabsan in qoyska madaxweyne Trump suuragal ay tahay Iiraaniyiinta inay beegsadaan warbaahinta ay 24 oo Israel laga leeyahay ayaa baahisay in Iran ay doonayso inay qaarijiso wiilka uu dhalay ra-iisul wasaare Netanyahu oo Yair Netanyahu lagu magacaabo kaas oo gabi ahaanba aanan ku sugnayn gudaha Israel intii dagaalada ay socdeen ku sugnaa dalka Mareykanka waxaana qaar ka mid ah shacabka iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka ee Israel ay si weyn arrintan ugu dhaliilayeen ra-iisul wasaare Netanyahu maadaama carruurtiisa aanay ku sugnayn furmaha hore ee dagaalka xubno Iiraaniyiin ayaa la rumaysan yahay marka in ay ku sugan yihiin gudaha Miami waa lagu eedeynaya oo waxa la leeyahay xubno xiriir la leh Iran ayaa dhaqdhaqaaqa la socday si gaar ahaaneed gurigiisa iyo jaamacadda iyo goobaha kale oo uu tago kadibna digniin amni ayaa soo baxday Yair Netanyahu waxa lagu amray inuu si degdeg ah Mareykanka uu kaga baxo iyadoo oo la sheegay inuu Israel dib ugu laabtay xitaa soo laabashadiisa waxa lagu waramayaa in la ogaaday macluumaadka ah in alaabtiisii uusan hore u qaadan arrintan waxay la xiriirtaa hadal dhawaan uu sheegay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu kaas oo xaqiijiyay in Iran ay isku dayday inay disho mid ka mid ah wiilashiisa balse ma uusan sheegin wiilka uu la jeeda ama faahfaahin kale oo dheeraada warbixinta Israel ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay qorshahan inuu ahaa mid sir ah oo muddo badan ay hay'adaha amniga ee Israel ay ka warqabeen iyadoo faahfaahinta qaarkeed ay ku jirta xiraadda faafinta wararka si kastaba haatee ilaa iminka si rasmi looma xaqiijin in Yair Netanyahu uu ahaa bartilmaameedka rasmiga iyadoo kanaalka 12aad ee Israelna uu baahiyay isku daygan inuusan ahayn mid cusub oo marar badan xogtani banaanka la keenay laakiin labadii maalin ama labadii toddobaad ee la soo dhaafay waa tii mar qoyska madaxweyne Trump muuqaal laga soo bandhigay haddana arrinta qoyska Netanyahu ay gaartay xitaa xaaska Netanyahu ay dalbanaysa dhaqaale badan oo amnigeeda lagu xaqiijiyo maadaama ay ka baqanaysa in la bartilmaameedsado arrimahan maxaa haddana soo cusboonaysiiyay mise sheekada marba dhinacayna la aadaayo hadda halkan ayay sheekadu maraysaa wax walba oo ka soo kordho waan kula wadaagi doonaa like-sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay sida muuqaalkan aad ku arkayso waa mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan ee dowladda Iran ee dhulka hoostiisa saldhigan waxaa si toos ah u isticmaali karaya diyaaradaha droniska halkani oo kaliya laguma dayactiro lagumana kaydiyo sidoo kale waa lagu diyaariyaa si ay qayb kaga noqdaan duqeymaha ay dowladda Iran ay fulinayso marka la isticmaalayo diyaaradaha droniska ee isqarxinaya waxaa jira saldhigyo badan oo dowladda Iran ay leedahay kuwaas oo aan lagu arkin dusha sare ee dhulka balse lagu dhex qariyo buuraha mid ka mid ah saldhigyada ugu caansan waa saldhigga la yiraahdo 313 saldhig si gaar ahaaneed loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waana mid ka mid ah saldhigyada istiraatiijiga ee dowladda Iran ay gacanta ay ku hayso saldhigana Iran muhiim uma ahan marka la eego diyaaradaha droniska oo kaliya laakiin waa xarun loogu talagalay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran lagu ilaaliyo iyadoo laga ilaalinayo duqeymaha dhanka cirka diyaaradaha qaarkoodna waxa loo diyaariyaa inay howlgal ay fuliyaan iyadoo lagu farsameynayo lagu dayactirayo sidoo kalena lagu diyaarinayo dhulka hoostiisa Iran saldhigan waxay ku dhex qarisay mid ka mid ah buuraha ugu muhiimsan ee Zagros lagu magacaabo ee galbeedka dalkaasi Iran halkaas oo buuraha waaweyn iyo dhulka adag ay siinayaan difaac dabiici ah ayna adag tahay in la bartilmaameedsado fikradda saldhigu waa mid fudud laakiin military ahaan waa mid aad muhiim u ah haddii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu hayo saldhig dusha sare ah waxaa suuragal ah in weerarka cirka lagu bartilmaameedsado hangarada ama goobaha lagu kaydiyo wadooyinka ay ka duulaan iyo guud ahaan diyaaradaha hal jeer laakiin marka awooddaasi lagu qariyo gudaha buurta weerarka cadowga uu fulin karayo wuxuu noqonayaa mid aad u adag saldhigga lagu magacaabo 313 waxa uu qayb ka yahay istiraatiijiyadda dowladda Iran ee sida weyn looga baqo iyo in awoodda dhanka cirka ee dowladda Iran ay noqoto mid aad u sarreysa taasi oo ah in awoodda military ay sii jirto xitaa haddii saldhigyada caadiga la bartilmaameedsado marka la eego saldhigan dowladda Iran waxa uu qabtaa 3 arrin oo muhiim ah waana sababta looga cabsado
isku darka saddexdaasi arrin waxaa ugu horeeya diyaaradaha daroniska ayaa lagu qariyaa gudaha buuraha. midda labaad waxaa gudaha lagu diyaarin karayaa ilaa waqtiga howlgalka uu bilaabanaya diyaaradahan, oo waxay mar qura u baahan karayaan inay bannaanka usoo baxaan iyaga oo diyaarsan si ay howlgal ay u fuliyaan. waatan saddexaad ee marka howlgalka uu bilowda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxay ka bixi karayaan xarunta iyagoo fulinaya howlgallada sahanka ama weerarka. taas waxay ka dhigaysaa saldhigan qaybta ugu muhiimsan fikradda dhanka militariga marka la eego, waxaana Iiraan aad moodaa sanadihii ugu dambeeyay inay si weyn u horumarinaysa awoodeeda dhanka cirka, iyadoo inta ugu badanna agabkeeda iyo sidoo kale diyaaradaha muhiimkaba lagu qariyo dhismayaasha dhulka hoostiisa. waana midda keentay xitaa in la gaari waayo xarumahooda nuclear-ka maadaama dhulka hoostiisa ay ku yaalaan. haddii saldhig caadi ah la weeraro waxaa suuragal ah in diyaaradaha gebi ahaan la burburiyo, waana sababta ay diyaaradahan ay dowladda Iiraan ay u geysa dhulka hoostiisa. waana mid ka mid a saldhigyada ugu baaxadda weyn ee Iiraaniyiinta ay isticmaalaan diyaaradahooda droniska ee dhulka hoostiisa ku yaala. sanadkii 2022 saldhigan waxaa dhowr jeer booqasho ku tagay saraakiisha dowladda Iiraan. muuqaaladan ayaana ka mid a kuwii xilligaasi laga duubay, waana midka ay sida weyn hadda u hadalhayaan warbaahinta reer galbeedka, waana midda keentay mar kale hadda in warbaahinta uu qabsado saldhigan si macluumaadkiisa loo ogaado. wararka qaar waxay sheegayaan inay adag tahay macluumaad rasmi oo saldhigani ku saabsan in la helo, waxaana warbaahinta qaar ee reer galbeedka ay leeyihiin xitaa ma ahan buuraha Zagros halka uu ku yaalla ee waa meel kale. sababta ay Zagros ee Iiraan u dooratana waa mid ka mid a marin habaabinada ay doonayaan inay ku marin habaabiyaan warbaahinta reer galbeedka. Iiraan muddo dheer waxay wajahaysay khatar weerar dhanka cirka ah, gaar ahaan Maraykanka iyo Israel. sidaa daraaddeed Tehran waxay isku dayaysaa inay ka fogaato in dhammaan diyaaradaheeda iyo qalabkeeda militari lagu ururiyo saldhigyo dusha sare ah, taasoo fududaynaysa in la ogaado. gudaha saldhigani waxaa la sheegay inay ku yaalaan dhismooyin aad u waaweyn iyo goobo amnigooda la adkeeyey, taas oo siinaysa difaac ka badan saldhigga caadiga. waxaa kaloo saldhigan muhiim u yahay waxaa ku yaala baqaaro aad u waaweyn. diyaaradahan waxaa la sheegay in lagu kaydin karayo xarumahan iyadoo loo adeegsan karayo howlgallada dhanka militariga. qaybta ugu muhiimsan ee saldhiganina waa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ku jira, ee qaarkood la sheegay inay yihiin kuwa xitaa bannaanka aan lagu arkin. waxaa ka mid a diyaaradda lagu magacaabo Kamaan 12, 22, Fortress, Muhaajir iyo sidoo kale Ababil oo kuwa ugu caansan diyaaradaha droniska ee dowladda Iiraan. warbixino maanta ay daabaceen warbaahinta reer galbeedka ayaa si gaar ahaaneed waxay ku sheegeen saldhigan inuu yahay awoodda dowladda Iiraan. madaxweyne Trumpna xalay waxa uu ku hanjabayay inuu beegsan doono xarumaha ugu muhiimsan ee lagu kaydiyo nuclear-ka iyo buuro kale oo muhiim ah oo Maraykanka uu rumaysan yahay in dowladda Iiraan ay ku kaydinayso barnaamijkeeda nuclear-ka. wax walba oo ka soo kordha saldhigan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa, inkastoo dowladda Iiraan saldhigyo kale ay gacanta ay ku hayso kuwaas oo muhiimadooda leh. dhinaca kalena sida uu baahiyay wargeyskada Axios, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka ayaa lagu waramayaa dowlado badan oo gobolka inuu ku wargeliyay in Washington aysan doonaynin inay duqeymo ay ka fuliso waqti xaadirkan gudaha dalka Iiraan. inkastoo wargeyska sababta uusan sheegin, haddana qaar ka mid a warbaahinadu waxay leeyihiin waxaa taas ugu wacan in Maraykanka uu doonayo inuu u diyaargaroobo doorashooyinka dhexe ee la filayo November inay ka dhacaan gudaha dalka Maraykanka. xitaa madaxweyne Trump maanta waxaa lagu waramayaa inuu meel marinayo dhaqaale badan oo uu doonayo in xayeysiin lagu sameeyo xisbigiisa si doorashooyinka ay ugu guuleystaan. wax walba oo ka soo kordha macluumaadkan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah. like saar muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.